بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنا صلى على الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وعبد المجيد محمد علي الوين بالبوسله تاريخ maanta waa 20 iyo 2 bisha محرم kuna 442 hijriga ah kuna beegan 10 bisha September 2020 Soomaali iyo waxaan ka baryayaa Ilaahay waxaan ka baryayaa Soomaalina ugu baaqaya Ilaahay inay ka barido Ilaahay inuu shirka maanta xamar ka dhacaya oo Soomaali rag badan oo kamid isugu imaanayaan Ilaahay inuu faraj ka soo saaro Ilaahay inuu ka soo saaro isku duubni iyo bal dawladnimo dawlad la'aan wax kale taama jiraan dadkeena baa dibadaha iyo meel walba ku dhibane meel walbana dhibaato ku haysataay wadankeena ma kula fiirsanahay cadaawad iyo isu keen diraya rasuul iska horkeenayaay Ilaahay inuu gabadhnimo iyo dawladnimo halka inuu ka soo saaro dambigeena Ilaahay dhaafo wixii hore ka dhacay Ilaahay inoo dhaafo maantana qalbigeena Ilaahay isu dumo qalbigeena Ilaahay isu geeyo Ilaahay Soomaali waxaan ka baryayaa intaasaan ka baryo Soomaaliya waxaan leeyahay Ilaahay inoo barya war Ilaahay inoo baryo oo in ka daaya maalba inaan meesha lagu shirayaba waxba kama jiraan aynu iska dayno waxba kama ayna helin waxa dhibahay kama ayna helin dadka maanta shiraya Ilaahay ba awood leh Ilaahay inuu qalbigooda isu dumo oo dawlad qaybta wadada Ilaahayna mariyo oo cadawga Ilaahayna ka qabto oo dawladnimadii gobonada Ilaahay noo soo celiyo oo shantii Soomaaliyeed aan raadinayna Ilaahay inoo fududeeyo inoo sahlo iyo muslimba Ilaahay inoo sahlo oo dhabadeeda Ilaahayna qaadsiiyo inta Ilaahay noo weydiiya عبد المجيد محمد علي الوين بالبوسله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.